Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawow channelka. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa laba qaab oo aad ula soo degi karto muuqaalada Facebook ku jira. Qaabka koobaad waxa uu yahay in aad qaadato linkiga muuqaalka dabadeedna aad browserka kaga soo dhex downloadgareysato. Qaabka labaadna waxa uu yahay application ayaan ku siinaya. Applicationkaasi ayaad markaasi si fudud uga soo dejisan kartaa muuqaalada. Okay, haddaba aan ku horeyno qaybta koobaad ama markaasi habka koowaad ee aad ula soo degi karto muuqaalada ku jira Facebook. Marka ugu horeysa ee aad Facebook soo furto kolleyba muuqaalada ku jira ama videoska meesha ku jira marka aad u baahato inaad la soo degto malaha meel aad kala soo degto. oo haddii makaan halkaas ugu dhufto waxa uu ku soo dhigayaa option kale laakiin download malaha Facebook. Saas darteed waxa aad sameynaysaa muuqaalku marka uu sidan yahay ama muuqaalku marka uu sidan kugu soo dhigo qaybtaas saddexda dhibcood baad ku dul dhufan doontaa. Saddexda dhibcood ee xagga sare ayaad ku dhufanaysaa. Then waxaad ku dul dhufanaysaa copy link oo linkiga ayaad qaadanaysaa. Okay, copy link baan odhanayaa. Halkan waan iskaga baxaya markaa. Halkan markaan iskaga baxo hadba markaasi adiga browserkii kugu jira ee aad ka soo dejisan karayso ayaad markaasi galaysaa Chrome-ka Samsung internet-ka Opera-da noocyada kale kugu jiraba. Okay, Google Chrome-kan markaasi galaya si markaasi aan u soo download muuqaalkan. Okay, halkan marka aan soo galo halkanaan markaasi paste ku siinaya linkiga aan soo koobiyay. Halkanaan ku markaasi ku paste gareynaya. Okay, linkiga marka uu sidaa yahay waad searching garanaysaa markaasi waad sugaysaa markaa inta uu kusoo saarayo halkii muuqaalku ku jiray. Okay, muuqaalkii waa kan. Muuqaalku marka uu sidaa yahay ee saa kugu soo saaro halkaa ku qoran yahay markaasi linkigu ayaad halkaa ku dul dhufanaysaa. Marka ku dul dhufato halkaa m.facebook ku qoran tahay m-ta horteeda ayaad ku qoraysaa basic baad ku qoraysaa then search baad markaasi siinaysaa. qaabkan ayuu kugu soo saaraya markaa waa kan muuqaalka marka aad san ugu dul dhufato halkan markaa kaaga soo baxaya muuqaalkii isagoo sidiisiya then marka aad soo sii deyso halkan aad soo ugu dul dhufan doontaa download ayuu ku soo dhigaya waad arkaya download marka ku dul dhufato muuqaalkii sidaas ayuu kugu downloadgareysmay markaasi oo ku soconaya waa kan muuqaalkii hadda downloadgareysmaya. Okay, habka koobaad waa habka ayaad markaasi u downloadgareysanaysaa. Okay, habka labaad aynu eegna markaasi. habka labaad waxa weeyaan application ayaan ku siinayaa. Application-kana qaybta hoose ee muuqaalka ayaan ku dhigayaa halkaas aad markaasi kala degaysaa. Application-ku waa kan ama barnaamijka markaasi aad kala degayso muuqaaladu waa kan. Application-ka marka aad san soo gasho haddii markii hore uu Facebook-gaagu uu kugu jirin hadda ayaad gashanaysaa. haddii kugu jirina browse Facebook baad oranaysaa. hadda browse Facebook baan ku dul dhufanayaa. Facebook-gaygii caadi oo sidiisa markaasi halkan iga soo baxaya. Facebook-gaygii ayaa halkan iga soo baxaya. Okay, qaybtan muuqaalada haddii aan ku dul dhufto ama muuqaalka adigu aad doonayso haddii aad searching garayso muuqaalkan hadda asaa ugu dul dhufto hadda waxaa markaasi uu ii soo dhigaya download iyo watch labada midun inaan daawado iyo markaasi inaan dejisto muuqaalkii. waad fahantaa filaya. haddii aan markaasi download ku dul dhufto hadda wuu ii markaasi ii degaya muuqaalkii oo waxa uu ii gelayaa qaybtii gallery-ga ama qaybtii device-ka ayuu markaasi ii gelayaa. saas ayuu iigu downloadgareysmay muuqaalkii waana qaab fudud. kaliya Facebook-gaaga umaad gashanaysaa halkan marka uu soo dhigo Facebook-gaaga markaad gashato sidaa doonto markaasi u browse garanaysaa ama markaasi muuqaalada aad ugala soo degi kartaa. then muuqaalka markaas ugu dul dhufato download buu markaasi ku siinaya. halkaas markaasi kala degaysaa muuqaalada Facebook si toos ayuu markaasi device-kaaga ugu shubmaya. wax dhibaato ahna ma laha markaasi advertisement ama markaasi xaysiisyo waxaas kuma soo gelinayo. application-kana qaybta hoose ee muuqaalka ayaan ku dhigaya halkaad aad kala degi doonto markaasi labada hab ee aad muuqaalada Facebook ula degi karto ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. haddii aad muuqaalka ka heshay like saar sidoo kalena subscribe inoo saar tan iyo muuqaalka dambe intaan iskugu iman doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.